waxaa jiray wiil aad u xanaaq badnaa. Aabbihiis ayaa siiyey jawaan ay ka buuxaan masaamiir aad u badan. Wuxuu ku yidhi, wiilkaygiiyow, mar walbo aad xanaaqdo, hal mismaar ku garaac derbiga guriga. Maalintii koowaad wiilkii wuxuu ku garaacay derbiga guriga 37 mismaar. Toddobaadyo kadib wiilkii wuxuu bartay inuu xakameeyo xanaaqiisa. Tiradii mismaarada waa ay yaraadeen. Wuxuu bartay in la xakameyn karo xanaaqa halkii derbiga lagu garaaci lahaa masaamiirta. Ugu dambeyntii aabbihiis ayuu u yimid isagoo aad u faraxsan, wuxuuna ku yidhi, Aabe, maanta hal marna ma xanaaqin. Kadib aabbihiis ayaa ugu jawaabay, wiilkaygiiyow, hadda mar walbo ay maalin ku dhaafto adigoo aan xanaaqin, hal mismaar ka soo saar derbiga. Intaa kadib wiilkii maalinba maalinta ka dambayso derbiga ayuu ka soo fujinayay masaamiirta ilaa ay ka dhammaadeen. Intaa kadib aabbihii ayaa inta gacanta qabtay wuxuu horgeeyay derbigii, wuxuuna ku yidhi, wiilkaygiiyow, shaqo fiican ayaad qabatay, balse eeg daldaloolada ka muuqda derbiga. Derbigani sidiisii hore dib uguma noqon doono. Marka aad qof hadal xun ku tiraahdid adiga oo xanaaqsan, waxaad qalbigiisa kaga tegaysaa nabaro la mid ah daldalooladan oo kale. Xitaa haddii aad ka raaligeliso, nabaradani waa ay sii jiri doonaan. Xigmaddu waxa ay tahay, haddii aad ka shalaayi lahayd hadal aad tiri adiga oo xanaaqsan, xusuusnow in mararka qaar raaligelin kasta aysan tirtiri karin nabarada qalbiga. Carabku lafa ma leh, laakiin wuxuu jajabin karaa lafaha iyo qalbiyada ugu adag. Saaxiibayaal, waxaa jira dad fara badan oo waxyeello ay ka soo gaareen ama sababsaday oo qalbiyadoodu dhaawaceen hadallo ay dadka si fudud u dhaheen. Sidaa daraaddeed, qof walbow ka fiirso waxa aad qoraysid ama hadallada aad dadka kale ku dhehaysid.